si ay ugu qaadato bangiga lacagta adeerkeeda oo dhintay ayaa waxay isku dayday in ay saxiixiisa ama qalinkiisa ay lacag ku qaadato. Haweeneydan adeerkeed ayay soo waday, dhar ayay usoo xirtay, kadibna waxay keentay bangiga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Saaxiibayaal, walaalayaal, soo dhawaada. Magacaygu waa Cabdirasaaq Ariif. Halkaad naga daawanayso waa Cabdirasaaq Ariif. Haddii ay tahay markaa kugu horeysa aad soo booqatay YouTube channelkan, subscribe saar, sidoo kale Facebook pagekeena follow soo dheh. Videogan haddaa ka heshidna like saar. Saaxiibayaal, waxaan rabnaa insha Allah 1k inaan gaarno. Marka hore inoo wada insha Allah, aad iyo aad u mahadsantihiin. Dhacdo ka dhacday dalka Brazil, haweeney 50 sano jir ah ayaa waxay damacday in ay bangi lacag ka qaadato, weliba si ay ugu qaadato bangiga lacagta adeerkeeda oo dhintay ayaa waxay isku dayday in ay saxiixiisa ama qalinkiisa ay lacag ku qaadato. Haweeneydan adeerkeed ayay soo waday, dhar ayay usoo xirtay, kadibna waxay keentay bangiga. Bangiga markay timaado kadib ayaa waxaa yaala marka bangiga bahal yar oo wheelchair lagu riixo loogu talagalay dadka aan socon karin, dadka culus iyo dadka naafada ah. wheelchairka ayay soo saartay, gudaha ayay waxay usoo gashay bangiga. Bangiga markay soo gashay kadib waxay la hadashay shaqaalihii bangiga, waxayna u sheegtay in adeerkeeda iyo ayada ay u baahan yihiin lacag. Shaqaalihii bangiga ayay dhaheen waxaa laga rabay adeerkeeda in uu saxiixo dukumentiyada oo lacagta lagu bixinayo. Adeerku waa adeer meyd ah oo aan gacanba ama far nuuxji karin. Kadib ayaa shaqaalihii waxay u sheegeen ninkan in ay wax ka qaldan yihiin. Kadib waxay u sheegtay iyadana in adeerkeed uu xanuunsan yahay, isla hadeertaan isbitaalka ay kasoo bixisay. Kadibna ay leedahay adeerku wuu xanuunsan yahay, isbitaalka ayaa kasoo bixinay. Asiga ayay la hadlaysaa oo waxay leedahay dukumentiyada saxiix si aan lacagteena u qaadano. Way ogtahay iyada adeerkeed inuu dhinto, laakiin indha adeegay meesha lasoo taagan tahay. O senhor precisa assinar. Se o senhor não assinar, não tem como. Eu não posso assinar pelo senhor. Senhor, o que eu posso fazer, eu faço. Tipo, igual o documento aqui, ó. Paulo Roberto Braga. O senhor segura forte pra caramba a cadeira aí. Ele não segurou, ele é forte. Não vi. Não, A gente também não viu. segura, tio. Assina pra não me dar mais dor de cabeça, tem que ir no cartão, tem que ir no que não gosto mais. Eu acho que ele não tá legal. Tio, Ele não tá bem, não. tá sentindo alguma coisa? Mas ele não diz nada. Eu acho que ele não tá bem, não. A senhora tá sozinha? Sim. Ele não tá bem, não. Olha, a corzinha não tá ficando... Mas ele é assim. É, Ô tio. Tio, não tá, não. se eu não ficar bem, você leva pro hospital. Se eu ganhar culpa de novo. Marka dhacdadan ayaa waxay ka dhacday dalka Brazil, isla markiina haweeneydaas waxaa loo wacay booliiska, sidaas ayaana waxaa lagu geeyey xabsiga. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Insha Allah fiidiyoyadan iyo fiidiyoo kale intaan ku kulmi doono. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.